السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال فيديو كل كسو دوادا سأجدان وحان فدي مير باركن لاده بدنا فيديو يال مالمها مصوتوبا لكن وان جعل مركز وحين لا شير غريو حتى هدي نقطة انا ميل اسك فيديو ساو قاركين اوغتيهين مردو waxaan bilaabi doonaa iskuul la yiraahdo Gabi School waa school oo boot camp ah oo aniga bilaabay saad ogtihiin iskuul waxaan waday hadda ka hor oo boot camp ah experience badan iyo waxyaalo badan ay iga kordhay iyo indhaha igu kala baxay waxyaalo badan marka waxaan ogaaday in dadka Soomaalida iyo dadka Muslimiinta iyo dhamaan dadka Afrikaanka ay u baahan yihiin iskuul boot camp ah iskuulada boot camp kana inta badan aad ay qaali u yihiin laakiin kana aniga bilaabay insha Allah waa reasonable inta barabina ku xayisiyo maxaa yeelay dadka badana channelka ku jira Soomaaliya joogan barnaamijkana hadda aan bilaabayo waxaan ku bilaabayaa Mareykanka iyo Canada laakiin insha Allah mustaqbalka hadii aan u helno xal Soomaaliya insha Allah si aan u soo gaarsiino waa soo gaarsiinayna taasna waa goolkayga weeye waxaan ku hormarnayna marka hore Europe iyo Australia and then insha Allah waan ka shaqeynaynaa Soomaaliya si aan u helno wax oo micno sameynayo oo annagana nala shaqeynayo adinkana faa'iido fiican idin keenayo wuxuu ku fiican yahay markasta bootcamp wuxuu ku fiican yahay siiba dadka oo ku cusub wuxuu ku fiican yahay in uu class aad qofka aadayo kana hadda bilaaba waa mid online ah waa 100% online ah sababtoo ah coronavirus badana jiro la islama kulmi karo iskuuladu waa xiran yihiin dadka shaqooyinkii ka kala tageen oo shaqooyinkii waa istaageen marka sidaa darteed waxaan isleeyahay dad badan ayuu anfacayaa sida aniga uga faa'iideystay Lambda amal ay dad badan uga faa'iideysanayaan insha Allah iskuulkana waxa inspire garay Lambda iyo micnaha habka Lambda u shaqeynaya si micnaha waxa weeye oo aan ka ay ka qaatay methodology-gooda ama habka wax u baraan ala kulli xaal alxamdulillah hadda ku dhawaad 300 arday ayaa isdiiwaan gelisay marka waa insha Allah wuxuu bilaaban doonaa adiga January koodeeda sanadka bilowgiisa ayuu wuxuu bilaaban doonaa registration-ka bilaaban doona isdiiwaan gelinta iskuulka caadiga wuxuu bilaabanayaa February marka adinka ilmo iloobay insha Allah iskuulkaas xoog saaraya oo waa iska garanaysaan iskuul online ah oo boot camp ah oo dad la barayo coding oo si intensive ah oo 4 months lagu barayo wuxuu u baahan yahay focus fara badan iyo wuxuu u baahan yahay waqti in geliyo waxyaalahan sameynayana oo macna iskuulkana hadda sameynayana wuxuu aas u yahay mustaqbalka insha Allah mustaqbalka waxa weeye adinka in soo gaarsiiyo in asaga oo la hagaajiyo oo refine gareysan oo kala habaysan idin soo gaaro oo meel kala duwan Soomaaliya laga furo insha Allah that's mustaqbalka taas waaye laakiin hadda wax kasto meel baa laga bilaabaa macna isku maday wax kasta inaad ka bilaawdid wax weyn waxa adiga awoodida laga bilaabaa ka bacdi waa la sii wadaa aakhir way meel bi gaaraysaa marka arinta waxaan kugu sheegayo macna hadda adinka ilma qusayso maxaa yeelay waa iskuulka Soomaaliya ma ahan iyo dolkaas laakiin macnaha ka wada waa inspiration waxaan rabaa dad macnaha in ay ogaadaan in ay bilaabi karaan wax so adiga hadii aad niyad gashato wax waad bilaabi kartaa waxaad u baahan tahay kaliya xoog ku bilaabi lahayd waxa u baahan tahay dad ku aaminsan waxa u baahan tahay dad ku taageero laakiin hadii aad leedahay khibrad hadaa leedahay oo soo aragtay wax waad bilaabi kartaa cid aad weydiisanaysid ma jirto badana dadka waxay rabaan in la dhaho waxas bilow in macnaha la siiyo permission ama ogolaansho oo la dhaho waa bilaabi kartaa dhimalaha go ahead bilow in la dhaho rabaan laakiin adiga hadda wax rabtid inaad bilaawdo iskuul ha ahaado ama ha ahaado ganacsi oo wuxuu rabaa ahaado ganacsiga ama ha ahaado wax adiga jecesha ama hay'ad ha ahaato waxay rabtaa ahaato qofna ha weydiisanin macnaha inuu ku siiyo amar ama inuu ku siiyo ogolaansho adaa sameyn kartid macnaha hadii aad niyad gashato waqti aad gelisid aniga hadda iskuulkan waxaan geliyay sanadkii aan ku jirno dhan oo coronavirus ku socdo dhan organizing iyo curriculum iyo waxaan ku jiray iyo isku dabaridkiisa ilaa sanadka halfkiisa waxaan ku jiray fikirkiisa sidii aan isku dabaridi lahaa sanadka bartamiis markay ahaydaan shaqadiisa bilaabay waxaan bilaabay curriculumki ilaa hadda wali waa socotaa oo qaybi ugu dambeeya hadda dhiman laakiin waa curriculum oo habaysan weeye insha Allah adinka waxyaalaha in ka soo gaaraya macnaha ma aha waxaan wax oo 100% meel ku xiran ma ahan casharada qaarkood waxyaalaha qaarkood insha Allah waan la soo share gareyn doonaa saa u aragtaan
oo sneak peek camal basically oo wixii micnaha si u kala socdaan saa u aragtaan marka insha allah adinka wixii adinka aan waxa aniga ha qabto adinka micnaha marka hore taageerada isiiyey oo support siiyey hadda 9,000 maraysa dadka subscriptionka micnaheedu waxa 9,000 qof aaminsan waxyaalahan soo geliyo marka aad u mahadsantahay qof kasta oo subscribe gareeyay anigana waan ku dadaalaa insha allah inaan sii wado waxyaalahan casharadana sii wado barnaamijyadana sii wado waxyaalaha free-ga aan soo gelinayana ma joojinayo oo casharo free waan soo gelinayaa haddaba way ku jiraan oo casharada javascript iyo python-ki iyo react-ki ku jiro laakiin bootcamp-ka waxaan bilaabaya waxaan rabaa gacan qabasho micnaha inaad dad gacan qabto oo qofka tusaa habkii wax u baran lahaa habkii uu micnaha u gaari lahaa developer insha allah idinkana mustaqbalka in soo gaari doontaa marka micnaha waxaan kaga dan leeyahay haddii aad rabto inaad wax samayso qofna ha weydiisan ani markii aan fikradda aan usoo dhacday just waxaan la hadlay bas familkayga oo aan kala tashaday arrintii waxay dhaheen way ii sheegeen micnaha waxaan inay yihiin waxa aniga samayn karo waan ka fikiray waxaan sameeyey baaritaanka adi markaa wax samaynaysid inta aad samaynin waa baaritaan badanaa la sameeya waxaan fiiriyey horta bootcampyada si u shaqeeyaan sharciyada bootcampyada waxaan ogaaday waxaan qaatay casharo oo sida loo raangareeyo bootcamps iyo iskuullada loo raangareeyo waxaan akhriyey book ku saabsan managementiga iyo sida loo maamulo iskuullada course waxaan qaatay oo harvard ay free so harvard miams MIT ay free soo gelisay oo kaga hadlayso waxaa la dhahaa I think it's called waxaa la methodology of education and methodology of teaching habka micnaha wax loo baro iyo dadka macallimiinta micnaha waxay macallimiinta meesha ka baran lahaayeen waaye dadka maamula iskuullada marka taas waxaan kaga dan leeyahay marka wax bilaabaysid iskama bilaabo wax oo iskama xoogsado qaladaad badan kugu dhici karo waad khatar baa ku geli kartaa maxaa la dhihi jiray khasaare badan kaa soo gaari karto waxaa la yidhi soomaalida hore waxay dhaheen inta aadan sameyna ka fiirsamay ahayd marka look before you leap waa englishki marka waa arrin muhiima in qofka uu marka intuu wax sameynin uu barto wixii horta marka hore barasho basna ma ahana in ogaado aspect kasta qayb kasta ku saabsan waxa ay tahay in uu waraysto dad ilaa hadda aan casharaan daawadaa oo YouTube ku jiro oo ka hadlaya managementiga maalin dhoweyd waxaan daawanaya course dhan ay soo gelisay naag oo kaga hadlayso schools ay u bilowday so aniga am kind of that kind of person iska ah qof waxaan ahay markii aan rabo inaan sameeyo waxaan sameeyaa baaritaan dheer aan sameeyaa marka taas waa qof kasta shakhsiyadiisa waa laakiin waa wax muhiim ah in qofka uu wixii horta yaqaan hadaan wixii aqoonin sidee u wadaysaa hadhowdi sidee u shaqaynaysaa marka insha allah inaan ku dheereeyo ma rabo laakiin waxaan dhihi lahaa haddii ay niyadda wax kugu jiraan hadda arabti inaad bilaawdid balaangare waxaa weydiisaa talo waxaa weydiistaa dad kugu dhodhow xaaskaada qoyskaada familkaada حتى waxaa laga yaabaa ayaga inay fikrad oo negative ku siiyaan ku dhahaan waxaan ma ku shaqaynaysa iska dhaaf camal in ku dhahaan dhici karto horta adiga evaluate karee marka hore adi iska dhaadhici adi ma aaminsanta wixii marka adiga aaminsantahay 100% dad kale la weydiiyaa waxyaalo waxaa laga yaabaa yaryar oo dan ka fikireen inay ku sheegaan laakiin haddaa wixii aaminsantahay waa ku dhaqaaqi kartaa ayaga fikradooda waxaa weeye waa un ila taliya sidii waxaan micnaha wax macquul miya wax macquul maaha haddii ay kulligood ku dhahaan macquul maaha dan inaad dib u fiiriso baaritaan kala samayso sababtay u dhahaayeen waay ayaga inaad weydiiso maxaa u dhahaysan wax macquul maaha marka taladan way fiican tahay laakiin adigina is aaminsan tahayna waa kasii muhiimsanta taas so adiga is aamin bilaaw khasaare yar inay kaa soo gaarto laga yaaba hadduu shaqayn waayo anigaba dhowr ganacsi aan bilaabay oo khasaare iga soo gaartay laakiin 100% aan geliyay ma ahayn wax oo aan half aan luglug wada galay ma ahayn waxay ahayd wax 100% hadda iskuulkan aan bilaabay aniga waxyaalaha kale oo qabanaya dhan joojinaya asagaan 100% xoog saaraya marka haddii aadan 100% madax iskugu tuureen wixii waxaa fiican horta marka hore inaad ka fiirsato way dhici kartaa marka qaarkood waxa aad bilaabaysa inayna ahayn wax oo dhaqaale isla markaa kaa soo galayo laakiin haddii dhaqaale kaa soo galaynin then waxaad samayn kartaa part time ka dhigan kartaa inta uu dhaqaalaha kaa soo galaya kugu filnaado marka insha allah intaasaan kusoo gabagabeynaa aad u amaansantii dhammaantiin insha allah subscribe ku dheh channelka waxyaalo kaloo badanaa soo gelinayaa iyo casharo kaloo badanaa soo wada insha allah casharadii oo pythonki inaan dhamaystiraan rabaa insha allah iyo also Django casharadeedii inaan sameeyo
laakiin allah aclam goorta imaan doonaan maxaa yeele barnaamijkaanan xoogga saaraya hadda khayr aan idin rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu